السلام عليكم ساعات والسلام دمانتي فضل كسر دواء channelkeena mar kale haddii aan subscribe karin channelka ay loo inaan subscribe karaysid qorsheenu wuxuu ahaa inuu weekendiska sabtida hadda mooyaan inta kale aynu wadno trading iyo analyze karanteen in wadano iyo maxaan dhahay safarkeenaas laakiin toddobaadkan waa qorsho iyo mashquul badan oo nasoo dhex gala awgeed arrintaas waa ii suurtageli weyday so kalaata hadda waxaan isku dayay basa inaan codsi aan ku qiimeynaya asxaabta follow garaysa channelka ay soo dhiibteen inaan insha Allah wax yar ka taabto inta ugu muhiimsana waxaa kamid ahaa dormitriyada wadanka Turkiga inuu wax yar laga hadlo so dormitriyada wadanka Turkiga waxaan kusoo koobi dhowr qodob anoo laba u kala qaadaya qaybta private-ka iyo qaybta dawliga waxa weeyaan qaybta dawliga inta badan waxa lagu helaa inaad scholarship hadda aad haysato oo kale iyo inaad jaamacad dhigato oo kale inta badan laakiin qof dawli dhiganayo oo kale inta badan dormitory aadi dawliya dormitory dawliga qof raba inuu aado oo kale inta badan way adag tahay inuu maxaan dhahay qofkaas uu dormitorygaas dawliga helo anagoo ka eegaya dhinacyo badan sida tusaale ahaan qofkaas inuu luqad dhigto oo kale hadduu luqad dhigto waa laga yaabaa inuu lagu adkeeyo on scholarship na ahayn oo kale because marka ayada arday looma arko hadduusan arday ahayn ma aadi karo marka qofka dawliga aadi inta badan waa qof jaamacada dhigto oo kale register garaysan saa inaad ula socoto laakiin dadka dormitoryada private-ka cid walba laakiin way aadi kartaa dormitoryada private-ka in case iyadana sidoo kale way jirtaa inuu marka qaarkood rules ay jiraan qofka u diidaya hadduusan wax baranaynin meesha joogo laakiin again waxbarashada ayaa mar walba base u ah inaad dormitory deganaato so wax yar insha Allah waxaan isku dayay inaan ka hadlo qaybta private-ka inaan ku yar dheeraado because dawliga iyada muhiimadeedu waxa weeyaan kalaata inay ka lacag jaban tahay private-ka inuu inta badan jaamacada dhiganaysa aad heli karto hal site oo laga wada apply gareyn karo weli ma arag insha Allah bal private-ka inuu imaano private-ka waxa weeyaan asaga dormitoryadiisa isaga mar walba waad helaysaa meel walba way joogaan ma dhahayo private walba waa qaali laakiin private maxaa inta badan dormitoryada qaaliga waa private inta badan so private-ka qaaligiisa iyo haddana lacagta iyo waxaas caawa halkan idinkama sheegi karo qiimo ahaan inta uu dhan yahay dormitory private-ka laakiin average-ka wuxuu minimize gareynayaa ugu dambeyn inuu $100 ka kaco ayuu korna u dhaqaaqaya so again yani dormitoryada waxa weeyaan waxaad jirta dormitory aad heli karto again oo jaban laakiin waxaad mar walba ku qiimeynaysaa dormitoryga meesha uu ku yaalo station bus haddii uu dhow yahay haddii basas ku badan yihiin haddii yahay meel suuqa haddii yahay dormitory center ku yaala yani dormitoryadaas kale waa qaali dormitoryga hadduu magaalada ka fog yahay haddaan basasku ku badnayn hadduuna update garaysnayn haddii yani waxa weeyaan qiimuhu inuusan isku mid ahaan logically yani so adi marka insha Allah waxay ku xiran tahay kulba dormitoryga aad rabto iyo meesha inuu ku yaalo ay tahay jaamacadda tusaale ahaan hadduu ka fog yahay hadduu u dhow yahay oo kale ayadan xataa way kala gedisan tahay so insha Allah taasaas ayaad ula soconay oo qiimaha marka ayada waxay ku xiran tahay oo kaleeta marka ayada meesha aad joogtid iyo dormitoryga sida loo qiimeeyo taana waxaan kuu sheegaa wadda aad ku xallin karto insha Allah ugu dambeyn private dormitoryga sideen ku heli karaa yani magaalada ayaan dhex maraa kolba private oo kala raadiya kolba no the easiest way waxyaaban ani waan raadiya site maxaan dhahay aan heli karo dhammaan dormitoryada aan ka wada apply gareyn karo waan waaye so site noocaas inuu jirana uma malaynayo so the best way waxa weeyaan inaad mapkaaga isticmaasho aadan ogeynba inaad ka heli karto dormitoryada dhan yani tusaale ahaan mapkaaga dib ugu noqo oo kalaata private dormitories ku qor meesha aad joogtid private dormitories marka ku qorto listiga private dormitorieska aad meesha aad joogto oo dhan ayaa ku soo wada baxaya as you can see so waxaad sameynay tusaale ahaan waxaad soo qaadaa private dormitorygan oo kale private dormitorygan waa kii wiilasha haddaad tusaale ahaan ku gabdhaha gaar u raadinaysa kalaata gabar raaci by the way waxaan halka ugu qoray waa af ingiriisi idinku u fahantaan laakiin luqadda Turkiga private waxaa lagu dhahaa özel dormitory waxaa lagu dhahaa yurto so waxa weeyaan adiga waad isku dari waad ku raadin kartaa luqadda Turkiga haddaad taqaanid laakiin hadda ingiriis baan kugu qoray si aad u fahanto so mapka labadaba asagoo ku xalinaya don't worry about it tusaalaanada qof nina inuu raadinayo kasoo qaad so waa kana qofka ninka dormitorygiisa ayaa ku dhufan as you can see dormitoryga ayaa soo bixi haddana sawirro ayay soo raaxinayaan inta badan qasab maaha inuu sawir loo beesho laakiin sawirro inta badan ay soo raacayaan so as you can see sawirka hadda markaan ku dhufto waxaan arkayaa dormitoryga wajahadiisa ama sidekiisa yani iyo meesha soo eg tahay again halkan waxaan arkayaa dormitoryga qolka siduu u egyahay as you can see qolku siduu u egyahay يعني وقول أفر قف لجود دقي هذا تصالحان وكله مركن قول كان أفر قف لجود دقي مركن لبن لجود دقي مركن لح لجود دقي حتى قيمة وذا كله كده سين أساسا ولا صفر هذا تصالحان وكله هذا قول كان أفر تلجود دقيه ولا هذا ميا رلا هذا صحابي وحويان وقت صلاة هاي النقطتين لكلا
halkan waxaad ku arkaysaa yani dhammaan isticmaalkii ashyaadii aad u baahneed inaad isticmaasho markii aad dormitoriga aad maxaan dhahay aad deganayso sida akhriskaagii iyo waxaagii iyo sariirtaadii iyo waxyaalihii ku khaaska ahaa waxaad arki kartaa oo kale living roomska inta badan way soo dhigaan as you can see hadda kan oo kale meeshiisan oo kale inuu living roomkiisa ay probably u badan tahay probably so waa kana ama I don't know berende waxa la dhahamaya so you can see anyway waa meesha aadaysid wixiisa ay kusoo dhigay by the way waxaan eegaynaa waa kininka tusaale ahaan oo kale wajahadiisii oo kale as you can see halkaas and then halkan oo kale waxa weeyaan meesha uu ku yaalo oo si guuda stationka ayuu ku tusayaa stationka uu ku yaalo meesha waxa weeyaan inaad meel aan xumaan yani strategy oo kale aad xaafada dhexdeeda waad moodaa laakiin waxa weeyaan station baa ku yaala taxi sidekiisii baa ku yaala oo meesha taxi ka raaci laheeda so again in frontiga marka uu na tusay waxaad arkaysaa inay ahayd meel dukaamo badan oo kale I don't know yeah probably kana oo kale so markan oo kale waa meel waxay aad u baahan tahay kala as you can see halkan waadix aad si fiican u arki kartaa yani so I don't know waxa weeyaan wax walba waad aragtaa suuqiisii iyo cuntooyinka waxaad oga baahneed iyo wixii adeega iyo hoostaha ayaad kasoo adeegsanaysaa so waad ku xalini kartaa weygaas so I don't know sidekii waad aragtay wajahadii waad aragtay waxa weeyaan waad aragtay dhinacyadiisa oo dhan taas waxay ku dhib yaraynaysaa inaad marka aad apply gareynayso aad ku apply garayso yani ka helid aad dormitoryga ka heshay kabacdi waxaad damacdo waad ka heshay kasoo qaad and then inaad kan gasho ayaad rabtaa all what you have to do is just to call the number here numberkii halkan ay kusoo dhigayaan so ayar numberka garaac oo la hadal that's all yani qiimaha ayaad weydiinaysaa and waxaad weydiinaysaa inta lagu degayo inta qofku inay deganaato ay tahay in samarka la xiro because su'aalaha ugu muhiimsan waxa weeyaan samarka waa la xiraamaya mise lama xiro because dormitory waxaa jira aad ku talagelayso oo laga yaabo inaad iska soo gashay dormitory waqti samar ah oo kale adigu laakiin samarka ama bil ka harsan tahay oo kale and then samarka lagu dhaho bisha markay dhamaato dormitory waan xirinaa ka bax adiga oo meel kale isku diyaar gareyn yani so taasoo kale inta badan ka hortag waxaad samaynaysaa waad weydiinaysaa samarka haddii la xiro oo kale samarka haddii xataa u furnaado cuntooyinku miyay yaalayaan oo kale qaar baa ku dhahay cuntada waan joojinaa qaar baa ku dhahay samarku furnaa laakiin cuntada waa la joojin tusaalahaan waxa weeyaan dadooni waa la xiri waxyaalaha wax lagu dhaqdo iyo special wixii waxyaalahaas oo dhan baa la istaajin karaa baa lagu dhigi karaa so in case adiga waxaas oo dhan insha Allah saad oo labada socoto email haddii aad ku fiican tahay haddii kalena maxaan dhahay telephone numberkooda ayaad wacaysaa and that's all it takes telephone numberkii baad haysataa and then just gotta call it waxaan u maleynayaa inay tahay tani waddo fudud ood ku fahmi karto waxaan hadda ka hadlayo so waxa weeyaan anyway insha Allah waxaan ku sheegaa inay muhiimadda ugu weyn ay tahay inaad haddii aad rabto inaad dormitory heshay inay tahay inaad meesha aad joogto markaas ayadaa kala taa isticmaasho maapkiisa and then maxaan dhahay waxaad ku qoraysaa dormitoryada haddii aad dormitoryada raadinaysid and then dormitorygaas wuxuu ku soo saarayaa dhammaan dormitorygaas ku agdhow agtaada mar walbana googleka markaad wax ku qortid wuxuu ka bilaabaa shayga kuugu dhow oo kale haddii aad adigu magaalo kale iyo waxaasan raacinaynin shay haddaad ku qorto shayga ka kuugu dhow ka bilaabaa inta badan so waxaan malaynayaa inuu informationkan idin caawinayo waa kalaata waa si kooban oon isku dayay inaan kooba inta aan karayo waana informationka aan u malayn inta ugu muhiimsan inuu yahay insha Allah haddii aad su'aal qabto taasaa ka wanaagsan because su'aasha oo laga jawaabo wax badan fahansiin karto qofka insha Allah mar kale waxaan ku leeyahay fadlan haddii aad subscribe gareyn channelka ha iloobin inaad subscribe gareysid insha Allah is arag dambe videogeena dambe insha Allah waa salaam